بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhamaan ardayda Soomaaliyeed kusoo dhawaada janaalka waxbarashada iyo Resolution insha Allah alla awooda leh hadii uu raali ka noqdo maanta waxaa xalin doonaa qaybtii labaad ee maadada Carabiga waxaa ka bilaabi doonaa qismu saalis waa maadada Carabiga fasalka afraad ee dugsiga sare imtixaankii 2023 ardayda qaybta saddexaad waxay ka bilaabanaysaa alqismu saalis qaybta saddexaad waxay ku leedahay waa waxaa isku aadinaysaa qaa'imatu alif cibaarooyinka ku jiraan waxaa ku aadinay cibaarooyinka ku habboon ee ku jiro qaa'imatu ba waxaana saaran 4 darajo saaran midka ugu hore waxaa waaye min alcawaamil النهضية الأدب waxaa ka mid ah cawaamisha markaasi horumarada adabka waxaa ka mid ah waxaa ku aadan al-istishraaqu wa ixyaa'u turaat ku aadan sidoo kale ardayay min calaamaad al-majaaz al-mursal majaaz mursalka calaamadihiisa waxaa ka mid ah arday al-juz'iyya iyo wal-kulliyya ka mid ah ku aadan sidoo kale ardayda su'aal saddexaad bidaayatu al-casr al-xadiis bilowgiisa ama wuxuu bilowday arday waxaa ku aadan 1213 hijriyada oo bilowday casr al-xadiis bidaayatu al-casr al-cabaasi asna wuxuu bilowday bilowgiisa wuxuu ahaa 132 hijriyada sanadkii 132 hijriyada ardayda qaybta labaad oo ka mid ah qaybta saddexaad faqradeeda ba ama qaybteeda labaad oo hoos imaanaysa cunoosaadkeeda waxaa waaye sil al-kinaaya waxaa ku aadisaa kinaayada ku jirto ama hadalka daahsoon ee ku jiro ama erayga daahsoon oo ku jiro qaa'imatu alif waxaa ku aadinay midka ku habboon oo ku jiro qaa'imatu ba ku aadinay erayga koowaad waxaa waaye naqiyatu thawb waa hadal kinaayo ah waxaana loola jeedaa ardayo oo naqiyatu thawb waxaa la micno ah al-ciffa la micno ah dhowrsanaan waa sidoo kale ibnu sabiil arday waa kinaayo waxaa la micno ah al-musaafir sidoo kale midka kale oo xiga oo saddexaad waxaa waaye banu dunya arday banu dunya waxaa ku aadan oo la micno ah eraygaas kinaayada ah annaas la micno ah sidoo kale thamratul qalbi arday waxaa ku aadan eraygaasi al-maxabbatu waa erayga kinaayada ah micnihiisa waxaa waaye al-maxabbatu sidoo kale arday midka oo shanaad waxaa waaye haadimul ladaat waxaa waaye arday waxaa ku aadan al-mawtu waa geerida sidoo kale midka lixaad waxaa waaye jibaanul kilaab arday waxaa loola jeedaa al-kariima loola jeedaa qaybta labaad weli waxaan guda jirnaa qaybtii saddexaad meesha ayaa uga baxnay arday waxaana bilaabanaysa qaybta afraad waxaa saaran 20 darajo saaran awalan waxaa lagu dhahay marka ugu horeyso waxaa fiirisaa tusaale ahaan kadibna waxaa isku aadisaa canaasirta ama qaybaha ay ka kooban tahay risaalada oo rasmiga ah marka waxaa sameynaysaa warqadan ayaa buuxinaysaa tusaale ahaan taariikhda iyo waxaa qoraysaa oo hijriga ugu horeyso midda hijriga markaa qortid sanadka iyo waxaa qoraysaa iyo maalinta waxay tahay miilaadiga maalinta waxaa ku waafaqaysana waa sheegaysaa oo sanadka iyo waxaa qoraysaa iyo maalinta waxay tahay warqada waxaa ugu horeeyo ilaa mudiirul madrasa ama maamulaha magaciisa meesha ku qoraysaa qaybtan kalena oo ku diyaarsan tahay
kadibna meeshaan qaybtan kalena waxaa galaya bismu daalib, ardayga magaciisa galaya, ardayga magaciisa geline kadib qaybta ciwaanka imaaneysa ciwaan u sameysaneysaa kadibna waxaa sameyneysaa lixdan qodob meesha kugu qoran qaabka usoo kala horeeyaan u sheegi micnaha kow waxa ugu soo horeeya warqada waxaa laga bilaabo kow waxaa laga bilaabo basmalada bisinka laga bilaabo albasmalatu number ku meesha qoranta ku qoreysaa kore kugu qoran yihiin albasmalatu waa taas inta kugu qoran tahay waa soo dejinay albasmalatu waxaa waaye number ku qoreysaa number labana waxaa iskale aljihatu wataariikh number saddexna jihada iyo taariikh number laba waxaa ku qoreysaa jihada iyo taariikhda ku qoreysaa number saddexna waxaa ku qoreysaa number saddex iskale ataxiya iskale taxiyada ku qoreysaa number afarna waxaa waaye ismul mursal oo ah qofka markaasi warqada diraayo magaciisa ku qoreysaa sidoo kale waxaa ku qoreysaa ismul mursal ilayhi waa micnaha midka loo diraayo laqabuhu alwadiifa ku qoreysaa waaye number 4 ama numberka afraad numberka shanaadna waxaa ku qoreysaa arday mawduucu risaala ku qoreysaa numberka ugu dambeeyana waxaa ku qoreysaa bayaanaatuka ashaqsiya qaabkaas ugu buubuuxinay ardayga qaybtaas waa taas qaybta kale oo xigta oo qaybta hoos imaaneysa oo afraad haddii aan soo gudubno waxaa waaye waxaa lagu dhahay xawil aljumal alficiliya alaatiya ilaa jumalin ismiya jumladahan oo ficilka ka bilaabanayo oo jumla ismiyada loo yaqaano waxaa u bedeshaa jumla ismiya ka dhigtaa aljumlatu alficiliya jumlada ficiliyada ugu horeysa waxay tahay tacmalu alxukuma cala nuhuudi biintaaji albaxri tacmalu waxay sameysay alxukumatu xukuumadda calaa nuhuudi biintaaji albaxri marka arday jumladan saa ujeedis tacmalu waa ficil waxay ku bilaabaneysaa ficil ku bilaabaneysaa waxaa laga rabaa jumladan ficilka ku bilaabaneyso in aad ka dhigtid jumla ismi inaad ka dhigtaa laga rabaa kaliya waxaad sameyneysaa had tusaale ahaan ficilka yaa waaye waa tacmalu faacilkana alxukuma hadda waxaa sameyneysaa waxaa soo hormarineysaa magaciisa soo hormarineysaa oo waxaa ka bilaabaysaa tusaale ahaan waxaa dhahaysaa alxukumatu tacmalu saasaa dhahaysaa oo waxaa ka dhigay jumlada waxaa ka dhigay mubtada iyo khabar ka dhigay oo ismi ka bilaabanay jumlada saasaa yeeleysaa marka waxaa dhahaysaa alxukumatu meeshaan jumla ismiya horta ay ku qoran tahay waxaa ku qoreysaa alxukumatu lasoo hormarsiinaya alxukumatu tacmalu calaa nuhuudi biintaaji albaxri sidoo kale midka labaad ee xiga waxaa waaye tashtahiru asoomaal soomaal waxay markaasi caan ku tahay bitawaafuri almawaad aldabiiciya fiiha ay markaasi waxyaabaha markaasi dabiici laga helo marka arday waxay noqonaysaa jawaabta waxaa sameyneysaa waxaa laga rabaa marka jumladani inaad jumla ismiya ka dhigtaa laga rabaa tashtahiru waxaa sameyneysaa waxaa soo hormarinay isimka soo hormarinay waxaa dhahaysaa الصومال تشتهر بالتوافر المواد الطبيعية فيها ساسا قريسا جملة اسمي ماشي قران تورتيت sidoo kale midka oo saddexaad yasdaadu الصياد يزداد الصياد كيما هائلا من السمك waxaa sameyneysaa marka jumlada waxaa ka dhigeysaa jumla ismiile ka dhigeysaa oo waxaa horumarineysaa magaca asayaadu yasdaadu adheysa meeshaan kalene oo inta kalena sida u dhamaystireysaa midka afraadna waxaa waaye saafar axmed ilaa misr lidaraasa waa ku qoran magac la horumarinaya axmedun saafara ilaa misr ladheysa midka shanaad waxaa waaye dahab alfalaaxu ilaa masracatihi mubakiran oo waxaa sameyneysaa
اسم kale hormarinaysaa waxaa dhahaysaa alfalaaxu dahaba dhahaysaa. qaybta sida ayaa ugu gudubnay. waxaa u gudbaynaa qaybta ku xigta. haati waxaa lagu dhahay ismul faacil min al afcaal al aatiya. afcaashan soo socoto waxaa sheegaysaa oo aad keenaysaa ismu faacilkooda keen. kow waxaa ugu horeeyo jalasa ismu faacilkeeda waxaa waaye jaalisun waaye. fataxana ismu faacilkeeda faatixun waaye. shariba faacilkeedana waxaa waaye shaaribun waaye. sidoo kale jaahid ismu faacilkeeda waxaa waaye mujaahidun waaye. sidoo kale aqbil ismu faacilkeedana wuxuu noqonayaa muqaabilun waaye. qaybta xigta raabican qaybta afraad oo hoos imaanayso qaybta afraad. qaybta afraad waxaa lagu dhahay sanif maa ya'ti ila dibaaq al-ijaab wa dibaaq as-salbi. waxaa laga rabaa aayadahan soo socdo in aa u kala qaadid aayada markaasi oo salbi ah oo calashan diidmo ay ku jirto iyo kuwa ijaabi ah oo aan wax diidmo ku jirin. aaday u fududahay kaliya midii ijaab uu ku qoran yahay midii markaasi oo diidmo ah waxaa horteeda ku qoran dibaaqu salbi. midii oosan diidmo aysan ku jirin oo caadi ahna horteeda waxaa ku qoran dibaaqul ijaabi ah ku qoraysaa. النصوص هكذا قال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. wax markaasi oo kuma jiro oo salbi ah kuma jiro oo markaasi diidmo ah. waxay noqonaysaa marka jawaabta waxaa ku qoraysaa noocu dibaaq wuxuu noqonayaa al-ijaabi uu noqonaa macnaha dibaaqul ijaab ayuu noqonaa. midda labaad waxaa waaye qaala allahu tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa waxay keentaa waxaa waaye waa diidmo. marka jumladda waxay ka dhigaysaa jumla manfiya ay ka dhigay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. marka dibaaqaasi wuxuu noqonayaa dibaaq oo salbi ah ayuu noqonayaa oo waxaa ku jirto diidmaa ku jirto. sidoo kale aayadda xigtaa qaala allahu tacaala wataxsibahum iqaadan wahum ruquud. iyaduna wax markaasi oo diidmaha kuma jiro wuxuu noqonayaa dibaaqaasi dibaaq oo ijaab ayuu noqonayaa ama ijaabi. midka ugu dambeeya waxaa waaye caliyun yaktubu wa muxamadun laa yaktub. cali waa kaasa qoraal uu sameynaya muxamedna waxaa ku jirto diidmaa ku jirto meeshaasi laa yaktub aa qoran. marka noocu dibaaq wuxuu noqonayaa dibaaqu salbiya ayuu noqonayaa. القسم الخامس qaybta shanaad waxaa waaye التعبير والإنشاء. اختر واحدا مما يأتي ثم تحدث عنه فيما لا يقل عن 10 أسطر. waxaa laga rabaa labada ciwaan mid kamid ah inaad soo qaadatid kadibna aad ka qorto ugu yaraan mowduuc markaasi oo 10 sadar aan ka yareyn. marka midaani aaday u fududahay. waxaa qaadan kartaa makaanatul cilmi fi islaam darajada markaasi oo islaamka ku leeyahay cilmiga. ama waxaa qaadan kartaa dowrul fi tarbiyatul atfaal. labada ciwaanba aaday u fudud yihiin. midka markaasi kugu fududo xog badan aad ka qaadanaysaa. hada billahi tawfiiq. waxaa dhammaantiina dadka ku xiran janaalka waxbarashada Bresolution dhammaantiina u sheer gareey asxaabtiina. sidoo kalena ha ilaawina inaad nagu soo biirtaan oo subscribe aad noo saartaan. sidoo kalena aad noo sheer gareysaan si markaasi janaalka meel fog u gaaro. mahadsanidin.